Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamij cusub barnaamijkaasi oo la magac baxay sirta nolosha. Barnaamijkaasi waxaynu kaga hadli doonaa haddii allaha awoodda la ogolaado qodobadiisa ugu horeeya waxaynu kula faguri doonaa islamarkaasina aynu ka hadli doonaa akhlaaqda wanaagsan iyo sida ugu fiican ee uu qofka bini'aadamka ahi uu ku heli karo. Haddaba marka ugu horeysa waxaa muhiima inuu qofku isweydiiyo ma ku sifaysan tahay adigu in aad leedahay akhlaaq wanaagsan islamarkaasina ma tahay qof dadka kula dhaqma akhlaaq wanaagsan iyo dabeecad fiican. Haddaba akhlaaqda wanaagsani waa shayga ugu qiimaha badan ee uu Ilaahay uu bixiyo islamarkaasina uu hibeeyo qofka uu doono ee ka mid ah addoommadiisa. Waana shay aad u qiimo badan oo markaasi ay dadku isku majeertaan amaba si ay markaasi dadku ku kala sarreeyaan. Qofka leh akhlaaqda wanaagsan waxa uu dadka kula dhaqmaa si wanaagsan islamarkaasina waa qof furfuran oo markaasi kasban kara guud ahaan quluubta bini'aadamka. Waana qofka ugu mudan dadka bini'aadamka ah haddii uu yahay qof ku sifaysan akhlaaq wanaagsan iyo qiyam toosan. Diinteena Islaamku waxa ay si weyn u dhiirigelisay islamarkaasina ay u ammaantay akhlaaqda wanaagsan iyo qiyamka toosan, isagoo nabigeena Maxamed calayhi salaatu wassalaam uu Ilaahay ku ammaanay akhlaaq wanaagsan inuu leeyahay iyadoo markaasi lagu tilmaamay Qur'aanka Kariimka ah. Sidoo kale nabiga Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu sheegay in isaga laftiisa looba soo saaray si uu u dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan iyo qiyamka toosan. Haddaba qofka leh akhlaaqda wanaagsan waa qof markaasi ay isfahmi karaan guud ahaan bulshada islamarkaasina waa qof noqon kara hogaamiye amaba se qof noqon kara qof lagu daydo. Akhlaaqda wanaagsani waxa ay qofka dhaxal siisaa in uu markaasi uu helo ajar aad u fara badan, waana wax uu Ilaahay kaga raali noqon karo haddii uu qofku uu ku sifaysnaado akhlaaqda wanaagsan. Haddaba qofka leh akhlaaqda wanaagsan waa qof markaasi mudan islamarkaasina waa qof aad u qiimo badan, kaasi oo markaasi dadka bini'aadamka ah oo dhan ka horeeya, khaas ahaan kuwa aan ku sifaysnayn akhlaaqda wanaagsan. Qofka leh akhlaaqda wanaagsani waa qof kasban kara guud ahaan bulshada islamarkaasina waa qof aad u leh qiyam toosan. Balse qofka aan lahayn akhlaaqda wanaagsan ma aha qof markaasi kasban kara bulshada. Sidoo kale qofka leh akhlaaqda wanaagsan waa qof ku sifaysan dadnimo iyo habdhaqan wanaagsan islamarkaasina waa qof leh qiyam toosan. Balse qofka aan lahayn akhlaaqdu ma aha qof markaasi leh dadnimo iyo weliba la qabsi wanaagsan oo markaasi dadka uu la qabsan karo. Haddaba waxaynu isku baraarujinaynaa inaynu noqono dad markaasi ku sifaysan akhlaaqda wanaagsan. Sidoo kale waxaa muhiima inuu qofku uu markaasi naftiisa yoolbaadho islamarkaasina uu bal ogaado inuu ku sifaysan yahay akhlaaqda wanaagsan. Dabeecaddu waxa ay ka mid tahay shayga ugu qiimaha badan ee dhaxal siisa qofka inuu ku noolaado nolol wanaagsan. Qofkuna waa uu kasban karaa dabeecad wanaagsan iyo habdhaqan fiican. Qofka aan lahayn dabeecad wanaagsani waxa uu fursad u haystaa inuu markaasi uu kasbado dabeecad wanaagsan isaga oo ku dayanaya dadka aadka u qiimaha badan ee leh habdhaqanka wanaagsan. Waa tahay daawadayaal, intaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkeenii sirta nolosha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Siciid Cali Maxamed Turki, waxaanad kala socotaan barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki Channel. Fadlan ha ilaawin dhinaca like iyo subscribe. Intayn barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.